السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم وبرته ريال الشعب يوتيوب أنا وبادر حسن دولي maantay waxaan idin wadaa muuqaal aad ka heli doontaan siiba muuqaalku anfacaya dadka doonaya inay wax bartaan horumarna ay yeelaan. haddaba muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay saddex qodob oo muhiim ah. marka saddexdaas qodob mid ka mid ah inaad sameysay haddii aad doonaysid inaad ama jaamacad ama waxbarasho ama sidoo kale shaqo fiican oo nafsadaada ku anfici doonta mustaqbalkaagana inta ka harsan aad ka shaqaysan doontid shaqo aad u wanaagsan. haddii aad rabtid saddexdan qodob mid ka mid ah in aad markaasi ay ku jirto shaqadu, marka saddexdan qodob waa ku muhiim. haddaba saddexdan qodob maxay kala yihiin? kusoo dhawaada muuqaalka oo dhammaystiran. kusoo dhawaada markale. qodobka ugu horeeya ayaan ku bilaabi doonaa. waxa uu yahay inaad marka ugu horeyso practice sameysid ama sidoo kale si free ah aad ku shaqaysid muddo xilliga ay qaadan doonto ay ku xiran tahay markaasi shaqada aad qabanaysid. haddaba si free inaad ku shaqaysid muddo sanad ama ka badan ama ka yar waxay kuu sahli kartaa inaad ausbildung heshid. marka laakiin waxay ku xiran tahay mar walba shaqada adiga qaabkaad u qabatid. haddii aad practice sameysid laba fursadood ayaa laga yaabaa inaad heshid. waa haddii aad noqotid qof aad u wanaagsan isla markaana shaqadiisa u furfuran qalbigana ka shaqeynayo. waxaa laga yaabaa sheefkaagu inuu ku arko inaad tahay qof aad u wanaagsan, waxaana laga yaabaa inuu kuu soo bandhigo laba boont midkood. mid adaa ikhtiyaar u leh, midna waa codsi laga yaabo markaas inaad ka heshid shirkadu ama qolooyinka aad u shaqeynayso. midka aad ikhtiyaarka adigoo aad u leedahay waxay tahay inaad ausbildung sameysid oo is dhahdid muddadii baraatikada waad samaysay, sidaas darteed waxbaro oo hadda ausbildung samee. taas waa mid aad adi ikhtiyaar u leedahay oo aad sameyn kartid. laakiin midda laga yaabo in qolooyinka aad baraatikada u sameynaysid ay kaa codsadaan ama ay kuu soo bandhigaan waxay tahay inaad ayaga u shaqaysid. marka shaqadaasi aad baraatika ahaan u heshay waxaa laga yaabaa inay noqoto shaqo aada u wanaagsan isla markaana mustaqbalkaaga inta ku harsanba aad ka shaqaysatid. taas waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa uu yahay inaad codsi aad qoratid. tusaale oo kale haddii aad jarmal ka timaadid oo kale waxaa laga yaabaa inaad haysan ama shahaadooyin oo kale dugsi sare oo kale aadan haysan. marka sidaas darteed waa inaad warqadda CV-ga ama Lebenslauf oo kale iyo sidoo kale warqadaha kale ee codsiga ee aad ku codsanaysid inaad ausbildung sameysid aad u dirtaa qolooyinka aad ausbildungka aad ka codsanaysid. sidaas darteed iyagu waxay qiimeynayaan waxbarashadaada heerkay gaarsiisan tahay iyo waxyaabihii aad soo qabato. marka waxaa laga yaabaa in laba midba aad midkood heshid, inay ku dhahaan ausbildung waa ku siinaynaa iyo inay ku dhahaan ausbildung kuma siin karno. taas waa qodobka labaad. qodobka saddexaad isagana wuxuu yahay inaad iskuul sare aad ka soo baxdo oo markaasi jarka jarmalka ku yaala ama iskuul la mid ah kaas oo shahaadadiisa aad ku sameyn kartid ausbildung ama jaamacad aad ku aadi kartid. marka midaan dugsiga sare waa tusaale oo kale qofkii halkan ku dhashay oo kale ama qofkii halkan iskuul ku bilaabo oo kale ama iskuullada kala duwan ee wadanka iskuulladu laftirkooda dhowr darajo ay kala leeyihiin soo dhigtay ayaa markaasi fursad u heli kara inuu ausbildung barto. sidoo kale wuxuu qofkaasi fursad usii heli karaa inuu jaamacad dhigto. marka saddexdaas qodob waa ku muhiim inaad practice sameysid oo sidaas ausbildung aad ku heshid, ama sidoo kale inaad codsi aad u qoratid qolooyinka ausbildungka aad ka rabtid, ama midda saddexaad oo ah inaad halkan iskuullo aad uga soo baxday markaasina aad sameyn kartid ausbildung. saddexdaas fursadood la-aantood ausbildung ama xirfad ma baran kartid. marka waa ku muhiim inaad saddexdaas wado midkood raacdid, midkii adiga kuu fudud ama midkii aad adigu hore usoo sameyso oo kale. marka adiga joyska iskale. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka. muuqaalka waxay saleyntaa ku kulmi doona waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.